الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وحين كل حجرني ولا ليال سورة النازعات وحين كقاضينا آيات أفريطمناد أيان مريني إن عاوى waxay ku saabsan tahay qisatu Muusa maca Fircawn nabi Muuse calayhi salaam iyo Fircawn qisadana badankiinu de waa maqasheen dad badan baa maqlay in badan baa tafsiirka ka dhageysateen marka wax badan ma sii faahfaahin doono laakiin wayn dul mari doonaa insha Allah taala suuradan an-Naazicaadna wax badan may ka hadal qisadan aad u meesay dhexgelin si guud buu Ilaahay dul maray marka waxa weeyaan xiriirka ka dhaxeeya maxay tahay aayadihii hore ee Ilaahay ka soo hadlay qiyaamaha iyo bacsiga soo saaritaanka iyo qisadan Muuse maxaa ka dhaxeeya laba arrimood baa ka dhaxaysa arrinta koowaad waxa la oran karaa maadaama ay beeniyeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii uu sheegay bacsiga iyo nafta dib la iskugu soo celin doono weliba rasuulka ku dheeldheeleen ay yiraahdeen yaquluuna inna lamarduduna fi lxaafira ay ku dheeldheeleen noloshii hore dibna loogu soo celinaya tilka idan karatun khaasira waatay lahaayeen waa noqosho lagu khasaaray marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam aad buu uga murugooday arrintaas run ahaantii iyo jeeskay ku jeeseen qur-aanka kariimka markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala aayadahan uu kusoo dejiyey qisada nebi muuse ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala haddii ay kugu jeeseen nebi maxamedow hortaa waxaa jiray muuse qoomkii loo diray iyo fircoon sidan oo kale ugu jeeseen markaa nebi muuse kaga dayo sabirka iyo maaragtay dhabar adeega oo dacwadda u dhabar adeeg arrinta labaadna waxa weeye fircoon wuxuu ahaa gaalada ilaahay ku gaaloobay ku kufriyay kuwa ugu xun buu ahaa ayuu ka mid ahaa maadaamuu gaal weyn ahaa fircoon oo ilaahnimo sheegtay oo awood weliba lahaa oo ciidan adag lahaa ilaahay subxaana wa tacaala wuu qabtay haddana si xun baa loo halaagay fi dunya wal aakhira labadaba dunya aakhiraba marka ilaahay subxaana wa tacaala nabi maxamed wuxuu ku leeyahay fircoon kama awood badna qurayshi iyo gaalada reer maka hadday dembigan iyo macsidan iyo gaalnimadan iyo mucaaradadan madax adeega wadata hadday joojin waayaan buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala sidii fircoon loo qabtay ilaahay u qabtay ayaa iyagana loo qaban doonaa oo loo ciqaabi doonaa marka labadaa xiriir baa ka dhaxaysa ilaahay wuxuu yidhi walaalayaal hal ataaka xadiithu muusa nabi maxamed baa lala hadlaya calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu leeyahay nabi maxamedow miyuu kuu yimi warkii muuse miyaad haysaa waa jeclaysiinaya rasuulku inuu baraarugo oo si fiican u dhuuxo qisadan looga sheekayn doono ilaahay wuxuu leeyahay warkii muuse miyaad haysaa haddaanad haynin oo hore aanad u maqal anagaa kaaga sheekaynayna si fiican u dhegayso oo ku baraarug id naadaahu markuu ilaahay u dhawaaqay rabbuhu rabbigii uga dhawaaqay muuse bilwaadi almuqadasi tuwa isagoo ku sugan toggii barakeysnaa ee magaciisa la odhan jiray tuwa magaciisa la odhan jiray isagoo halkaa jooga ayuu rabbigii u dhawaaqay oo macnaha waxyigii lagu soo dejiyey waxyiga nabi muuse markii lagu soo dejiyey wuxuu joogay togga la magac baxay tuwa ee muqadaska ah ee barakaysan toggaasina wuxuu ku yaalay jabal duur ayuu ku dhex yaalay buurta duur la yidhaha siinay ku taala meesha iska galaan Filistiin iyo Masar magaaladaas marka alwaadna waxa la yiraahdaa waa togga ama godka ku dhex yaala laba buurood dhexdood ku yaala magaciisana duwa la yiraahdaa sidoo Ilaahay ku sheegay subxaanahu wa ta'ala marka duwana wala akhri tiwana wala akhri labada qiraa'ada waa magacu leeyahay toggaas uu leeyahay marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nabi muuse markuu waxyooday halkaas uu joogay goobtaas barakaysan ayuu joogay oo waxyigu ku bilaabmay oo loogu waxyooday marka waxyigii Ilaahay waxyoodayna muxuu ahaa uu Ilaahay amray nabi muuse Ilaahay wuxuu amray subxaanahu wa ta'ala idhab waxa lagu yiri u tag
ilaa fircawn u tag innahu tagaa fircawn wuu xadgudbay xadkii ilaahay wuu dhaafay xuduuddu ilaahay u dejiyay wuu ka tallaabay gaalnimo iyo ilaahnimuu sheegtay markaa ninkaa u tag boqorka ah ee masar maamula u dig oo naarta iyo ciqaabka ilaahay uga dig diinta islaamka iyo naxariista iyo nabadgelyadana gaadhsii sidaasuu ilaahay ku yidhi muuse calayhi salaam markaa fircawn waxaa la odhan jiray boqor kastoo masar maamula waa magacu iska lahaa title magaca fircawn laakiin fircawnkii ilaahay u diray nabi muuse calayhi salaam magaciisa waxay ku sheegeen mufasiriintu miftaax bin marsiis athani ayaa lagu sheegay markaa ilaahay wuxuu yihi fircawn u tag amarka la siiye waa taa waxyigu waa ka faqul waxaad ku tidhaahdaa fircawn hal laka fircawna ma rabtaa ilaa an tazakkaa inaan ku dahiriyo oo gaalnimada iyo kufriga qalbigaaga si uga baxo aada uga nadiifiso ma kuu sheegaa waddadii aada mari lahayd ood ilaahay ku raali gelin lahayd faqul waxaad ku tidhaahdaa fircawn hal laka ma rabtaa fircawn oo ma jeceshay ilaa an tazakkaa inaad isdahiriso oo aad noqoto mu'minan zakiyan muumin nadiifa oo dahiran oo gaalnimadan iyo waxaan aad iskaga hadho marka ilaahi subxaana watacaala fircawn markuu diray walaalayaal wuxuu ilaahay u sheegay inuu naxariis iyo hadal dabacsan iyo kalgacal uu kusoo jiito fircawn oo uu kula hadlo hadal iyo xikmad dacwadda ugu bandhigo lacalahu yatadakaru aw yakhsha siduu ilaahay ayadda kale ku sheegay waxay yidhaahdaan mufasiriinta qaar ilaahay markii uu sheegay fircawn uu ilaahay ku yihi muuse fircawn u tag uu xadgudbay oo dacwadda gaadhsii ilaahay wuxuu ku yihi waanaan ogahay inaanu fircawn rumeyneyn oon iimaan laga helin markaasuu muuse ku yihi ilaahay oo ilaahu haddaad og tahay maxaad iiga diraysa ilaahay wuxuu ku yihi subxaana watacaala 12,000 oo malag baa samada ku sugan oo baad gooba oo raadiya qadarka ilaahay weligoodna ma gaadhayaan oo ma helayaan marka waxa weeyaan qadarka ilaahay unbaa og laakiin adiga dacwadda lagu diray gudbi oo gaadhsi si aanu dee fircoon cudurdaar u helin maalinta yowmalqiyaamaha isagoo ilaahay og inaanu fircoon rumeyneyn ilaahay ayaa haddana muuse waxa lagu leeyahy u tag oo hadal dabacsan oo naxariis leh kula hadal oo dacwadda gaadhsi sababta waxa weeye waa cudurdaar inaanu helin maalinta yowmalqiyaamaha oo xaqa la gaadhsiiyo faqul waxaad ku tidhaahdaa hal laka ma rabtaa fircawn oo ma jecesha ilaa an tazakaa inaad noqoto qof muumin ah oo zaki ah oo dahiran wa ahdiyaka anna ma ku tusaa ma kugu caawiya ilaa rabbika waddadaad u mari lahayd ilaahay fatakhshaa ood ilaahay kaga cabsan lahayd waddadii ilaahay aad kaga cabsan lahayd aad ku raali gelin lahayd anna ma ku tusaa oo ma kaa caawiyataa maadaama rasuulkii ilaahay aan ahay sidaasuu ugu sheegay muuse laakiin fircoon wuu kibray waanu diiday waanu kasoo horjeestay xaqii uu gaadhsiiyey muuse calayhi salaam jawaabtiisa waxay noqotay fircoon inuu ilaahay subxaana watacaala rasuulkiisii uu beeniyo kabacdi muuse wuxuu la soo baxay mucjisadu ilaahay siiyey ee caddeynaysay inuu yahay rasuul ilaahay soo diray fa araahu muuse wuxuu tusay fircoon al-aayata alkubraa aayaddii weyneed mucjisadii weyneed mucjisada weyneyna waxa weeye waa ushii dee isku bedelaysa maska ama gacantii ujeebadda kasoo saarayay iftiimaysa sida qoraxdoo kale hilaacaysay waa labadaba fakadaba wuu beeniyey haddana mucjisadii ilaahay uu siiyey muuse ee uu tusay muuse fircoon waa beeniyey xaqiina waa beeniyey islaamnimadiina waa beeniyey waa casa ilaahina wuu caasiyey uma adbara xaqii uu ka jeestay buu ilaahay yihi yasca isagoo ordaya ayuu xaqi kasii jeestay wuu dhaqaajiyey xaqii wuu diiday wuu kibray kibir baa ku kalifay faxashara ciidankiisii buu soo urursaday fircoon fanaadaa weliba ciidankiisi uu dhawaaqo wuxuu yihi isku soo bax sixiroolayaashiisii ciidankii wixii oo dhan uu soo urursaday siduu muuse uu la dagaalami lahaa faqaala ciidankiisii wuxuu ka dhex yidhi iyo shacabkiisii anigu waxaan ahay waa fircoon baa leh rabbukum ulaclaa rabbigiina sarreeyaan ahay ilaahiga sarreeyaa ma jiro ilaahiga awood badan ma jiro aniga ilaahidii ah sidaa u ogaada waa khudbadiisa saasuu ku khudbaday waxaa la sheegaa qiso yaroo faniya oo mufasiriintu sheegaan waxay idhaahdaan ibliis baa iska soo dhigay bani aadam
isagoo fircoon xamaamka ku jira markaasaa wuxuu ku yidhi may garanaysa fircoon uu garan waayo markaasuu yidhi oo sidaanad ii garanayn waa anta khalaqtani adigoo i abuuray adigu sidaad ii garan la'day miyaanaad odhan ana rabbukum lacla markaasuu fircoon wuxuu ku hadla garan waayo فأخذه الله إلهي وقبطي فرعون نكال الآخرة عقابك آخرة يضل عقابي والأولى عقابك يدونك لبضبة والله قاعدة إلهي وحلي سبحانه وتعالى فرعون مركو كبري عيدا كيسو يسكوكو ياري وإلهني ما شاكتي إنو يربك الصرية يسكو يهين وشاكتي أيا دنبك وين وقالي لقو عقابي آخرية يدون به نكال الآخرة والأولى عقابك آخرة يكي الدنيا بوال مريبو إلهي سبحانه وتعالى كآخرنا وو هرو على مرين دونا وحقيق كي أدون كانوا مرو عقاب كي وقحما أيا لغو عقابو دي بدي واتي لغو قرقية لغو هفية وكل انتبيه مركا علماء قارو حيدا هذه نكال الآخرة وعقاب كآخرة كسو هري والأولى عقاب كي أدون كانوا لغو قاضي وبيا لغو هرقية وبدي واتي وكل انتبيه علماء قارنا waxay ku fasireen nakaal al-aakhira waxa lagu qaaday ciqaabkii dambigiisii dambe ee kelmadii uu ku dhawaaqay oo ah ana rabbukum la'ala aakhira lagu qaadi doona wal ula kelmadii xumeed uu ku hadlay uu yiri ma calimtu lakum min ilaahin ghayri suuratul qasas ayad 8 uu yiri aniga ilaah kaloo jira ma jiro aniga ahayn oo nidii ogahay ma jiro kelmada xun uu ku dhawaaqay adduunkiina عقاب كيدو لغو قادو دواتي بدل لغو قرقي كلمدنا هدو إلى أنا ربكم الأعلى أنيقا ربكينا صرينا وحا لغو قادي دونا أبو الله الآخرة آخرة لغو قادي دونا علماء قارنا ساوي كفصيرين إلهي سبحانه وتعالى سيدا سكوها لاغي ولغو هلغي ولغو عقابي فرعون أوديسي يعيدا كيسي يسحرديسي يوحي يردنا واكي صور رصدي ساحرين تيسي وحيسي يردنا والله لا عقابي إلهي وحده إن في ذلك عقاب كاكو دعي فرعون الدنك لا عبرة وحي وحكو قادة شيء وانو وقصنات لمن يخشى قفك